بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قرحي عافيمات ما شاء الله أصحابتنا عصب سو دواد بليز سبسكرايب إن شاء الله قنبلالكنا كل فسوسا وهشد وحن سو قلنا أصحابتنا لا joogto mahadsantiin maanta waxaa idin wadaa doonaa maasha Allah fudud gurigaaga ku samaysan karid cajiiba intuu ka kooban yahay insha Allah isla aragno laba xabo oo kuna waxaan isticmaali doonaa sonkor waa koob 4 meelood loo qaybiyay meel ah fixiso cusbo yar waaye maasha Allah fudud yahay baking powder oo aan iska isticmaali doono xoogaa insha Allah saliid qiyaasteedu hal koob meelahaas weeye waa caano iyo vanilla insha Allah aan ku carfin doono hadii la yiraahdo maasha Allah halka waxa kale oo yaala koob sokor iyo Nestle cream oo insha Allah hadhow aan dib ka sameyn doono caramel aan uga dhigi doono doonaad kor ka marin doono hadii la yiraahdo waxa kale oo maasha Allah isticmaalaya oo kana Nestle cream ka idinku soo dhaweynaya si fiican idin soo insha Allah bur laba koob aan isticmaalaya hadii la yiraahdo insha Allah qiyaastii xoogaa haduu jilcano waxa ku adkaysatid marka waa ka sii dheeri insha Allah hada u baahatid markaas marka maasha Allah waa kana laba koob bur meesha ku soo shubtay xeerada waxa isku dardarayaa inta qalalan waxa ku daraa cusbadii baking powder-kii waxa ku daraa yeast ama fixisadii sokortii intaas oo dhan marka madaxa isku galiyo insha Allah isku walaaqaya in isdhex galaan rabaa isku qasaya inta powder ka samaysan oo dhan qalalan marka maasha Allah intaas marka isku qaso ukuntii baa hadda ku daraya insha Allah saliid wixii dareeraha baa ku dardaraya wasla rafaajinaya marka maasha Allah uu fudud yahay waqti badan ma ka qaadanaya inta sameynaysid maasha Allah gurigaaga ku diyaarsanaysa insha Allah hada waxa ku dar qaado vanilla maasha Allah caanihi ma hadba tartiib u isticmaalaya ku rafaajinaya insha Allah xoogaa ku daraya marka maasha Allah inuu aad kaaga adkaadana ma fiicna jilaac zaid inuu yahay ma fiicna hada waa kana waa rafaajiye wuu soo faxay maasha Allah waxa siinaysaa ilaa 30 daqiiqo 1 hour hadba cimilada ay joogtida ku xiran tahay insha Allah halkaan aan ku soo kala bixinaya hadii la yiraahdo waa kan video waa soo gagaabiyay way u dheeraanaya waqti dheer oo noqonaya insha Allah marka waxa ku jirjaran ka dhaahad wax kasto ay circle glass ba isticmaali kada dhexdana fur yar baa ka isticmaalaysa qaab adiga doonaad u eg baa ka dhiganaysa maasha Allah marka waa kana soo u jirjaray waa kala bixiyay burkii waxa u jirjaray si goobaabin ah circle dhexdana inta kale taa ka saaraysa wax yar fur yar baa ku jaranaysa maasha Allah hadana dib baan saxan u saaraya hadii la yiraahdo waa daboolaya inuu mar labaad soo faxo waxaan rabaa oo hadhow noqdo maasha Allah donut maasha Allah cajiib oo fush ah intuu sii faxayo waxaan waxaynayaa marka caramelkii halka waxaan ku soo shubay galaaska sokorta ahaa maqli aan dabka soo saartay galaaska sokorta insha Allah sokorta ku waxaynayaa si fiican dabka loo gaabinayaa inay dhalaashaal rabaa si fiican u shiilanto waatana dabka u gaabiyay tartiib u shiilmaysa oo walaaqaysa si kaaga dhigdhigin insha Allah marka maasha Allah waxa kale oo ku daraya hadii la yiraahdo caanihi ama Nestle cream kiya ku daraysa insha Allah waa kana si fiican oo boobsiisa u rabaa inaa u walaaqdid in isku dhigdhigin maasha Allah oo diyaarinaysa boobsiisa ku diyaarinaysa
insha allah. Doonadkiina gees buu iiga faxayaa, saliidii dabka iiga saaran tahay. waxa dhan wax yar casariya ka dhigan kadhaa maasha allah. caruurta yararka, xaajiga, dadka xaafada familka dhan maasha allah. hadda guryaha inta badan la joogaa waxyaalo badan waa loo baahan yahay casariya maalintuna maasha allah. meelaha qaybtooda aad ay u dheer tahay, marka hadba wax yar oo simple ah kasoo tuuran kadhaa. laakiin maasha allah doonadkii waa rogrogay, dabkaa soo saaray saliidu. marka maasha allah zaaid hadday u kululaato hal mar buu kaa gubanayaa. marka si goldi ah fiican inuu dumo, dahabi uu noqdo fiican maasha allah. si fiican inuu noqdo wuuna jilicsanaanayaa maasha allah. saliidu qabowna ma fiicna inaa ku ridid oo adkaanayaa. haddaa saliidu qabow ku ridid inay meel dhexaad tahay waa fiican saliidu maasha allah. waa kana hadda doonadku waa dubay. waxaa ku waxaynayaa marka karameelkii aan sameeyay asna dhinaca ka sameeyay dhex dardaraya qayb ka mid ah. saasa u dhex daraysaa, hal dhinac baa ka daraysaa, kaga waxaynaysaa saxan baa saa ugu safanaysaa maasha allah. caruurta aad ay u jecel yihiin iyo xaajiga iyo maasha allah. insha allah soo tijaabiya haddii ilaahay yiraahdo. waa fudud yahay, waqti badanna ma kaa qaadanayo. gurigaagana si fudud ugu diyaarsanaysaa cunto aa ogtahay waxay ka kooban tahay insha allah. haddii ilaahay yiraahdo please channelka subscribe siiya insha allah. gambaleelkana ku dhufso saa u heshid waxyaalaha aan soo gelino insha allah. isla socono oo ku mahadsantihiin daawashadiina. asalaamu calaykum waraxmatullaahi